الرحيم وحي إن عن عديو لقب بلعب مانتا تاريخ دولابية تبنتهاي بيش جون إن عن سر رسمي وقرق سيستي شغدي ماير لماذا هي مخاطر عمر كرم محلنا وانا معاملة دوكسو سريع سمترنا وانا مدير بانها الحاجة وحبرشة دبل الوثيق على راس الحي ده واحد شري ظروفه فربنا باشرة لمبر 1 guudahaan shaqadii oo dhan baa jaam garowday isku jaam garowday oo madaxeena kala yeelan weyday arinta iyada hadan si faafaayo waxa weeye xaq ahaantii de koox diaspora oo wadanka dibadiisa ku raagtay oo aan dhaqanka iyo dabeecadaha dadka garanayn baa maamulka gacanta loo galiyay iyagoo dadkii way isku jaam gareeyeen shaqadii way kala socon weyday arinta kale maaragtay iminka aadi aad u keentay in aan maaragtay isxasilo oo qodobkaas waxa weeye dalkani in badan baa dagaal ka socday muddo sanad iyo 4 bilood ugu yaraan marka niman ismo iyo culimo iyo aqoon-yahano iyo cuqaal isugu jira oo reer Hargeysa baa culimada iyo ismada aqoon-yahanada buuqood la soo hadlay oo yiri waxaan doonaynaa inaynu waan nabadeed si wada jira u wada galo arinta qoladayadii ama garabka reer buuhoodla waa ka aqbalay kadibna maamul ahaan bay noogu soo bandhigeen aniguna maayar ahaan arinta waan aqbalay oo wasan ka xariiqay sababtoo ah baahida nabadeed ee deegaanka buuhoodla ka jirta ayaan ogahay markii maamulka sare loo gudbiyayna maamulkii sare waxa uu istaagay lama aqbalay su'aashaas waa su'aal fiican waxa aan leeyahay wixii lagu heshiiyay ee taleex lagu soo dhistay waxa aad moodaa sidii uu ahaa ee loogu talagalay si aan ahayn in uu u dhacay oo baawarkii iyo waxqabadkii uu hal koox gacanta u galay taasina waxay keentay dheelimaad fara badan iyo in beelihii qaar kamidii maartay la fuulgareeyo oo meeshiiba laga saaro in yaani magrasa shaqadii kala socon weydo oo isku jaam garooyo in shirarkii iyo yaani magrasa meelihii muhiimka ahaa ee loo baahnaa in wada jir wax looga qabto yaani magrasa la isku herdiyo marka anigu waxaan leeyahay dadku hal qoys iyo hal qof hataa hadii hal qof yaani magrasa ka leexsan yahay waxqabadka iyo rabitaankii dadka waxba u dhiman waxaan leeyahay dib ha la isugu noqdo ama kale keentay iscaasilaadan waxa weeye barashar xoog leh oo igaga yimid aniga beeshayda waayo waxay ogtiin idinku xoogaal u tihiin hadday noqoto madax dhaqameedka hadday noqoto siyaasiyiinta hadday noqoto aqoon-yahanada dhammaan aniga beeshaydu tootali may qaadan mabaadi'da khaatumo waayo shirkii taleex waad ogeydeen maxamed xaaji cumar wuxuu kaga yimi yani khilaaf iyo caro hogaamiyeesi xaglatoosii khilaaf buu kaga yimi iyo caro beesha inteedii kalena yani ma garanaysaa cid wax weydiisay ma jirto khilaafkaasina weli wuu socdaa waa ogtiin in ilaa iyo meesha la yiraahdo Istanbul dabada la isaystay oo khilaafku gaadhay marka qoladan howlwadeennada khaatumana may samaynin guddi dib u heshiisiineed ama khilaaf xalilida oo yani dadkii ama khilaafaadkii gudaha ka jiray wax allaale waxay ka qabateen ma jirto sidaas ayaa beeshu kaga maqan tahay khaatumo ayna wax xiriir iyo wax wada shaqeyn midna u lahayn marka barasha fara badan iyo cadaadis fara badan badinii beesha iga soo fuulay anigu keligay marka de khaatumo beeshu ma metel karo mar haddii madax dhaqameedkeedii siyaasiyiinteedii aqoon-yahanadeedii waxgaradkeedii oo dhan ay ka maqan yihiin wax heshiisana aan laga raadin de anigu waxba macnay booska aan joogaa wax macnaa oo maaragtay ii sameynay ama uu horumar uu keenay ma jirin sidaa daraadeed marka waxyaalahaas oo dhan la isku soo xooliyo waxa aan go'aan ku gaaray in aan jagada iyaga iska xasilo laga bilaabo maantana
نش عربان هاي وديجان كيسة شو بدت كيسة كمدة وحشقاه وخاتمه وهاي أنا ما شرته دارنت وصلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.